waxaa fashaliyey shuruudaha cusub ay keeneen maxaa yeelay saddexdii shuruudood oo baydhabo recommendations talooyinkii laga keenay baydhabo waa aqbalnay waxay keeneen dhowr shuruudood kale waxay yidhaahdeen waa inay beesha caalamka soo fadhiisato oo iyagu ay garantoor ka noqdaan shirka waa kow laba waxay yidhaahdeen baarlamaanka waa in la kala diro baarlamaanka sharciga ahaa oo iyaga awoodda siiyey inay wax soo xulaan maxaa yeelay doorashadan waa doorasho national ah waay marka doorasho national ah dowlad goboleed runtii shaqo kuma laha laakiin law number 30 yaa wuxuu siiyey dowlad goboleedyada inay wax soo xulaan marka baarlamaankii u ogolaaday oo awooddaa siiyey iyo waxay soo istaageen waa in la kala diro waxay kaloo ay yidhaahdeen waa in ciidamada qalabka sida taliyaashooda la kala diro iyada naftigeeda arrintaasna waa arrin runtii aad iyo aad u xanuun badan maxaa yeeley markaas waxaa socday dagaalkii berire iyo waxaa socday dagaalkii awdhigla socday oo dee askar badan halkaas allahu naxariistee ay nooga dhimatay kuwo badan ay ku dhaawacmeen dagaalkii oo socda dhexdiisii waxay leeyihiin ay yidhaahdeen ay soo jeediyeen in taliyaasha la kala diro marka runtii intaas oo shuruudood oo aanan qayb ka ahayn tii baydhaba September agreementna aan qayb ka ahayn iyo la soo degeen maxaa ku kalifi kara mudane madaxweyne waxaa ku kalifi kara saas leeyahay ma rabin inay galaan doorasho xaqiiqatan maxaa yeelay markii aad loo murmay waxay soo istaageen September 17 ma aha sax September 17 waa dhacay waqtigiis waa dhacay maxaa yeelay wax alla wixii heshiis ah lagu gaaray iyo jadwalkii lama fulin saas darteed September 17 agreement heshiiskaas waa buray heshiis ka jira wax ka jira ma laha aan hala fariisto kow hadda wax la qorto marka dad ku talagalay ma ahayn inay halkan wax la wada saxiixdo oo kadibna dib loo noqdo oo doorashooyinkii iyo xulashadii la galo marka waxaa runtii ka go'nayd inuu shirkan fashilo maxaa yeelay tan kale ee keeneen waxay ahayd oo ugu dambeysay in madaxweynayaashii hore ka soo qayb galaan iyadii taas waaba ka aqbalnayba maxaa yeelay waa dad mas-uuliyiina ee dalka madax uga soo noqday horey waaba ka aqbalnay iyada taas oo markiiba waxba muran lama gelinba laakiin waxaan filaynay inta kale oo qodob ay keeneen inay tahay qodobo iyaga aan awood u siinayn inay ka dhigaan qiil ka dhigtaan si shirka uu socdo taas darteed markii 3 bari lagu doodayay oo runtii si kasta loola hadlay oo la yiri walaalayaalow September 17 idinkaa askale idinkaa keensaday idinkaa ka soo shaqaystay idinkaa codsaday idinkaa soo saxiixay idinkaa ka shaqeeyey waa ladin ogolaaday oo waa ladin tanaasulay baydhabo talooyinka ka soo baxay idinkaa keenay oo in lagu daro heshiis horey loo saxiixay oo dhammaaday waa ladinka aqbalay iyadana marka wixii idinku aad awal keensateen oo idinka aad curiseen oo aad ka shaqayseen qaad wax kale aad keentaan aysan jirin si doorashadan ay horu dhacdo waxay soo istaageen oo intaas dheer baarlamaankani waqtigiisa waa dhammaaday oo hala kala diro oo baarlamaankan heshiiskii sharcigii baarlamaanka ee law number 30 yaa wuxuu siinayaa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyey sidaasoo kale madaxweynaha iyo prime ministerka waa iyagan sidaasoo kale waa firaaq inaan la helin waxay yidhaahdeen waana la hoosgeliyey maanan ogeyn saxiixaas maan ogeynba macnaha sharcigii maanan akhrin maanan ogeyn oo sharciga waa qaadateen inta idinka idin khusaysa oo ah in sharcigan awood idin siinayo in laga guuro doorasho qof iyo cod ah oo loo guuro doorasho dadban waa aqbasheen oo waa akhriseen sharcigan idinka idin siinayo awoodda inaad wax ku soo xushaan laakiin maadan akhrin qodobka 3aad oo sheegaya firaaq inuusan jirin maadan akhrin laakiin qodobka koowaad waa akhriseen
marka taas waxay cadeynaysaa inaysan daacad ka ahayn xaqiiqatan in meeshan heshiis u yimaado doorasho lagu galo oo dadban. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.